مدير نذير هدو مقليو إنه يستجد يمادو ساعة خلونا سودويه نذير ودنيرة وحبرتي ما شاء الله سقوا سقوا هذا يا والقدوميه صودا هاي بركة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مركو هرتا waxaan ka raali gelinayaa inaan soo daahay marka labaad title bigu sii dhijiyay yiri waa wakiilkii soo daahay marka maxaa la yiraahdaa shaqan ka soo baxay bahayd marka ma aan ogeyn inaan maaragtay wakiil ahay xubin baan ahaa ama shacab baan ahaa waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyooyinka dhalinyarada rag iyo dumar bale culimaa diinka gudoomiyaha jaaliyadda onelef gudoomiyaha dhalinyarada oysu gudoomiyaha dhalinyarada DDS iyo dhammaan xubnaha ka soo qayb galay baan salaamayaa salaan kadib horta waxaa ilaahay mahadi ah aynu caaw hal kursi aan ku wada fadhino hal caawa aan ku wada caawinaynaa ilaahay mahadiya annagoon ka cabsanaynin waxa weeye shaambadii ahayd waxa weeye caawa waxaad la fadhiisatay annagoon ka cabsanaynin waxaad la fadhiisateen onelef iyo waxaad u tagteen annaga looynin waa ilaahay mahadi isbedelka runtii waxay ku timid isbedelka maaragtay guud ahaan East Africa ka dhacay gaar ahaan Ethiopia ka dhacay ay qoomiyadda Oromadu waxa weeyaan hormuud ku tahay habayna leeyse hadana waxa weeye libinta waa la siiyaa qofka maaragtay marka iyaga waxa weeyaan kulliba isbedelkan hormuud u ahaa inaguna qoomiyadaha ka faa'iideystay Ethiopia man kamid ahayn marka taa laga yimaado isbedelkii guud u dhacay hadda waxa loo baahan yahay isbedelkii inaga dhexdeena ahaa inaan ka shaqeyno as a community mabda doontaado aaminsan ama waxa aaminsano maxaa la yiraahdaa DDS ama aaminsano maxaa la yiraahdaa ogaadenya waa isla meel hal deegaan man ka wada hadlaynaa ay ku nool yihiin population tira yar oo 8 milyan 9 milyan halkan hal magaalo 9 milyan 10 milyan ku nool Soomaaliya hadana waxa weeye hal calan iyo wadanka aragtay waxa weeye waxaan ka sheekeyn karaa marka inagoo population ahaan yar dhulkan haysan iska kooban yahay diintay iyo waxa weeyaan jinsiyadii iyo luuqadii iyo wax walba isku mid ay noo yihiin in hadana aan waxa weeyaan labadan ilmaadeerka ama qaaxisha ku wada cab waayaan aanu xanaamsanahay daciifnimo xageena aynay tahay marka wixii siyaasi ahaan ama siyaasad ahaan isbedbedelaya maalinba dhinac u kacay horta siyaasaddu sida la moodaya maalinba dhinac bay ka soo jeedsanay caawa shalay laba meelood baa laga soo kala jeeday maanta meel baa lagu wada fadhiisan haddana berrin laba kala meelood laga soo kala jeesta laga yaabaa berrina maan kala tegaynaa marka waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan inaynu isbedelka horta inagu lafayna nafteena ka bilowno oo aan aamino inaynu horta inagu dad wada dhashaynahay wixii siyaasadda halkaas ka dhig wixii maxaa la yiraahdaa siyaasi uu malmaluuqay kolba meel geynayo kolba bariiskiisa ku raadsanayo halka marka naga dhigtaan inagu waxa weeyaan wixii waxa weeyaan inaga dhaxeeya wax dhibaato ah oo shacab ka dhaxdhaxeeya ma jiraba waxa la dhibaateynay inagu ahaa waxa la dilay labada dhinac laga bahleynay inaga uma ahayn marka waxa weeyaan shacabku isbedel ha muujiyaan isu soo dhawaansho aan ka shaqeyno annagu hadda dhalinyaro ahaan baan bilownay hawshan weliba dhalinyaradu tiradooda aad bay u kooban yihiin dhalinyaro kale oo waxa weeyaan magaalada waxaa joogta aad wax u baratay oon ognahay xaqiiqatan deegaankeenu wuu inoo baahan yahay dadkeennii iyo shacabkeennii waxa weeye biyo la-aan caafimaad la-aan wada la-aan koronto la-aan shalay waxa laga yaabaa SRTV haddaad daawanayseen
simikaar inaad la baxdo aad soo furato simikaar telephone inaad soo furato halkan shirkadaha kala boobi halkan iska daa Hargeysa haddaad tagto Telecom Telesom maxay baa kala boobi jigjiga dhexdeeda hal telecommunication baa ku yaala halkii telecommunication ku yaalay qofku inuu hal simikaar furto 5 saacadood 6 saacadood buu iyo fail ku jiraya oo u taagnaanaya dadka qaar baa jira gobolada kale ka yimid oo 8 maalmood simikaar uu furto u taagnaa wad qiyaas kartaa dhinaca biyaha iyo caafimaadkii haddaad tiraahdo wax laga sheekeyn kara maaha anu waan soo arkay ilaa grounding ilaa hostan ilaa min degmo qabale ilaa waxa weeye mandar 10 reerood meelay degan yihiin xataa waan tagay marka xaqiiqatan dadkeenu nolosha meeshii ugu hooseysay ee ugu liidatay bay waxa weeyaan xaqiiq ahaan marka laga hadlo markaynu kibirka Soomaalida iska dayno xaq ahaan marka laga hadlo dadkeenu meeshii ugu liitay bay marayaan cid loo baahan yahay inay ka saaraan waxa weeyaan maqan waa inaga cid wax u baratay waa inaga cid adduunyo kale iyo dad kala dhex gashay oo nolol kala garanaysa inay jirto waa inaga shakeer baan dii sheegayaa degmo Marsin la yiraahdo intiina badan aad garanaysan baa laga yaabaa waqtiga abaaraha ahayd 2016 oo cidla ayaa waxaan ku soo baxnay wax roob yar baa meel yar waxa weeyaan ka daay abaar buu ahaa dhulku gaarigu sidoo socday umay dad naga hor yimaadeen waxaan u yiraahdeen jooga waan naxnay maxaa jiraan sida waan ka istaagnay show laba laagood meel yar oo buuro saa u taagan iyo meel kale oo buuro saa u taagan oo baabuurku shaagiisi uu hoos u diisi oo maaragtay hoos u diisi biyo yar oo ku dhacay ay ka dhaansanayaan cabiyaan والله ما wax maaragtay hebel bayri oo aan ka sheekeynay ma ana nadartu soo yiri dadkeena xaalad noocaas ku jiraan caafimaadka hooyadu markay dhasho meelaha ay ku umulayso iyo dadka deegaanka waxa weeyaan ka yimid wax gaadha oo wax aad u yar inagii halkan joognay loo baahnaa inaan waxa weeyaan aan wax u qabano oo aan at least taageernana siyaasad ahaan baa lagu kala qaybiyay nin $1 geen karin uma jiro oo waxa weeyaan familiyadeena inaynu si gaar ah aynu wax u tarno laga yaabaa laakiin wax fandiya ama waxa weeyaan dadkeena aan ku taageerayna ma siino nin walba dhinac baa loo jeediyo lagu yiri idinku wax mabda salaamsantiina halkan idinku maxay ka sameeyay adinkuna halkan ka sameeyay marka waxa loo baahan yahay barnaamijyo noocaas oo badan anagu ka dhalinyaro ahaan waan diyaarinaynaa fundraising badan aan diyaarnaa maxaa la yiraahdaa ayaan qorsheeda hadii Ilaahay yiraahdo haddaad ugu garab istaagtaan aan rabnaa inaan bilowno in public libraries and insha Allah ta'ala maxaa la yiraahdaa aan ka shaqeyno sidii aan u fur lahayn haba nagu adkaato haday rabto sidii adigu at least waxa ugu yar ee aan gaarsiin karaa deegaankeeni hal buuga hal qalin wuxuu doonaha noqdo wixii aan dadkeeni aan tari karno inaynu si guud inagoo isku waxa weeyaan isku mid ah inaan maxaa la yiraahdaa aan u tarro ayaan qorsheeda qaadanaynaa waxa laga yaabaa inaad iga filayseen barnaamijyo siyaasadeed oo maxaa la yiraahdaa kala maadaama jaaliyad buu matalaya leeyahay inaan ka sheekeeyo taa waxaan uga sheekeyn karaa horta magaalada Nawaaban waxaan taa uga sii sheekeyn karaynin oonan wax kale u sii geli karaynin magaaladana waa maskaga cusubahay oo aad uma garanaya siyaasad ahaan iyo qaabkay wax u jiraan marka muhiimadda waxa weeyaan siyaasadda geeska Afrika way isbedeshay nin waliba waxa weeyaan qoomiyad waliba lagu isku duwatay imika innaguna inaan lagu isku duwano hal dhinaca wax wada raadsano Soomaalinimo wax ku raadino weeyaan aan Soomaalinimo wax ku raadino wiilka mooyaala jooga feerfeer ka qalaafa jooga ilaa iyo danwalle ninka ilmaha yar ee jooga inaguna sugaya ha odhanina dawladdu sugaya Itoobiya sugaya maxay sugaya ma sugayo inaguna sugaya inaguna waxaan wax u tari karaa markaynu inagu midaysanahay marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay anu waxaan kula dardaarmi inaynu maaragtay midnimo muujino wixii hore tagay iyo wixii dhibaato ah siyaasiyiin baan deynayna ama dawlad ha noqdaan ama hogaaminta oo nalef ha noqdaan wixii siyaasiyiintu ay go'aamiyeen iyaga go'aamiyay wixii dhacayna wuu dhacay shacabkeenu mar walba waa dhibanayaasha waxa weeyaan soo haraya meelna aanan waxa weeyaan tagaynin deegaankii iyo dhulkiina jooga
inagu kuwa aynu xooga saarno xoogayna saaran Mustafa Cagtar muxuu yiri iyo Cadaan Hirmooga muxuu yiri xoogayna saaran waxay noo soo kordhinayaan malaha waa siyaasiyiin siyaasad ahaan way noo loolamayaan wax weyn baan ka rajaynaynaa iyaga Ethiopia la xisaabtama baan ka doonaynaa inagu laakiin wixii aan inagu qaban karayno inaynu raacno maxaan inagu qaban karaa waxa weeye aan community ahaan waan sugu nimaadno oo aan hal meel waxa weeye shaaha ku wada cabno waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan soo koobi karin magaalada markaan magaalada imanayay maqaaxiyaha markaad gasho waxa weeye maqaaxiyaha markaad aad fadhiisato waxa la igu lahaa dadkii oo garanayo oo u garanayo ninkaas muxuu ahaa waa deegaankii oo iga sheego kalmadii ahayd macna Ethiopian Soomaaliga Ethiopian galaftigiisu muna raali ka ahayn dhibaatada jirtay waxaan ku garanayaa taa 12aadkii markaan aan jaamacadda ka baxay maalinkii ugu horeysay jaamacadda tagay nin shashamana ka yimid Maylow nin shashamana ka yimid oo aan malaynayo inuu orama aha mise amxaar aha adoo luqadan xaarigu ku hadlayay ayaa warqadii aan buuxinayay fildiga iyo magacayga iyo waxaan ku qorqoray ayuu waxa weeyaan ayuu ila soo garab fadhiistay markaasuu yiri niyo xageed ka timid markaasaan ku yiri jijigan ka yimid markaasuu yiri okay jijiga Soomaali ma tid buu yiri markaasaan ku yiri haa Soomaali baan ahay markaasuu yiri see jaamacadda ku timid markaasaan ku yiri jaamacadda Ethiopia ma fura markaasuu yiri haa laakiin Soomaali okay waxa tahay scholarship ku la siiyay miya macna Puntland iyo Somaliland ku la siiyay uu Turkiga waqti waxaan ku yiri 12 sano dugsi soo dhiganayso 12aad ba ka baxay hadda ma waxaad leedahay kililada Ethiopia ma aqaan intay ay ka mid yihiin wuxuu yiri aad ugu mashquulo waa sax baan ku yiri wabiga Ethiopia oo dhan ma taqaanaa wabiga Ethiopia oo dhan ma taqaanaa wuxuu yiri haa waa wabi Shabeelle buu wabi Shabeelle yaa iska labaan ku yiri maada iska leh wabi Shabeelle soo dhammaan marka sheeko dadka waaweyn ay ka sheekeyn jireen bay xasuusiyo ninkii nin baa lagu qabtay baa la yiri meel la yiraahdo meel xuduudka waayadii qixi baa ninku wuxuu ahaa baa wuxuu xidhnaa la yiri kabihii waaweynaa dharkiigu xidhan jireen amxaaradu ay lahayd xuduud ku rabay inuu soo talaabo wuxuu yiri baa la yiri inuu soo galu rabo xuduudka soo talaabo waxaa lagu yiri maxaa la yiraahdaa xageed socotaa wareetiyeerkano tabalas baa lagu yiri markaasuu yiri war Ethiopia weyn xageed igu wadaan Ethiopia ma Soomaaliya Ethiopia hor dib u noq waa la celiyay waa loo yeeray kabihiisa la arkay kabihii baa kaba xayd keenta lagu yiri markaasuu yiri kaba waa ku weegi markaasuu yiri baa la yiri war kabaha waan garnay waa kabihii Ethiopiaanke adu xageed ka timaado Soomaali baa tahay wuxuu ku yiri kabihii nina waad garateen anigina waad garan lahaydin xageed igu wadaan marka waxyaabo badan baa iska jira hal habeen waxa weeyaan lagu soo koobi karo waxyaabaha maaragtay Ethiopia ka jira iyo dadka sida gaabka loo kala dhaxgeliyay iyadoo meeshii waxba oolinba ayaa gaab weyn la kala dhaxgeliyay aniga xubinka ooysu ama yarka ona lafa iyo anigu wax badan baan aan waxa weeyaan ka simanahay waxyaabo badan waxa weeyaan oo sax ah baa jira oo runtii tahay oo ayna xaq ahayd inay ugu dagaalamaan oo ay ku dhintaan xaq ahayd baa jira marka taada in la sheegana hadda ka hor dhibaato iska marka insha Allah taala waqtiyo badan oo kala